taariikhdu waxbay kaydisaa waa duruus iyo cibar waxaa la yidhaahdaa ummad aan taariikh sugan lahayn waa ummad aan jiritaan sugan lahayn dabcan waa oraah dhiiragelinaysa in la sameeyo taariikh wanaagsan oo jiilasha soo socdaahi wax u tarta soomaaliya waa waddan khayraad badan leh oo dadkiisu muslimiin isku af iyo isku luqad yihiin islamarkaana hal qowmiyad ka kooban dal marka uu sidan oo kale yahay waxaa khasab ah inuu yeesho cadow taasoo keenta in ugu dambayn ay dadkiisu laba arrimood middood buugga taariikhda ku qoraan waa midda koowaade inay noqdaan dad gob ah oo dhiiggooda u hura difaaca diintooda dalkooda iyo dadkooda iyo inay noqdaan dad gun ah oo aanan gumaysiga iska dhicin amaba la saftaa marka aad akhriso taariikhda dagaaladii lala galay gumaystayaashii qarniyo ka hor ku duulay dhulka muslimiinta islamarkaana aad isbarbardhig ku samayso qabaa'ilkii la jihaaday iyo kuwii la saftay waaqicana aad ku milicsato waxaad arkaysaa inay si wanaagsan u tarmeen kuwii shisheeyaha la halgamay halka kuwii gumaystaha la shaqeeyey aanay tayo iyo sharaftoona lahayn markaad caalamka iyo sawirkaasi guud ka timaaddo oo soomaaliya aad si gaara u egto waxaa jira qabaa'il xul ah oo sidii ilayska oo kale uga dhex ifaya kuwa kale kadib markii ay la soo dirireen gumaystayaashii dalka ku soo duulay qabaa'ilkaas waxaa ka mid ah beesha biyamaal oo degta gobollada koonfureed ee soomaaliya beeshaas magaceedu maamuuska iyo milgaha leeyahay beeshaas maqaamka sare ku leh taariikhda ummadda godka maguuraanka ahna ka fadhiisatay sooyaalka ummadda iyo dhigaaladeeda ay ku dhaashato kuna indhakuulato ee hiiraalkeeda ku astaysan ayaanay dad badan oo jiilka maanta ka mid ahi soo rogan karin wax aan dhaafsiisnayn in beeshu soo jihaaday cilmiga sharcigana ku horayso beeshan iyo beelaha la midka ahba waxay mutaysteen in maanta la akhriyo taariikhdooda loo duceeyo oo welibana lagu daysado wax kale iska daaye xitaa waxaa taariikhdooda daraaseeya gaalada kuwaasoo qiraya inay yihiin dad gumaysidiid ah oo aanan oggolayn inay madaxa raariciyaan oo ubadkooda la gaalaysiiyo qarnigii 18aad ee taariikhda milaadiga beesha biyamaal waxay ahayd beel ka tilmaaman beelaha kale ee dega koonfurta soomaaliya waxaa lagu xusuustaa halgankii dheeraah ee ay gobolka shabeellaha hoose kula gashay gumaystayaashii talyaaniga markii uu socday dagaalkii u dhexeeyey gumaystayaashii ingiriiska iyo halyeeyigii mujaahidka ahaa ee sayid maxamed cabdulle xasan waxaa la soo wariyaa inay jireen beelo soomaaliyeed oo taageeray gumaystihii ingiriiska laakiin beeshan biyamaal weli lama soo tabin inay ka qayb qaadatay ama ay garab istaagtay gumaysiga muddo 14 sano ah gumaystaha talyaaniga uma suuragelin inay cagta dhigaan dhulka ay beesha biyamaal degto sababo la xiriira beesha oo lahayd culimo wanaagsan iyo ugaasyo iskala weynaa sandareerada shisheeyaha halkan waxaannu uga qisoonaynaa qayb yar oo ka mid ah taariikhda dagaaladii ay shisheeyaha la soo gashay beesha biyamaal innaga oo ujeeddadeennu tahay in jiilka maanta iyo kuwa beritaba ay ka faa'iidaystaan kuna kala gartaan qaanadaha ay ku kala jiraan qabaa'ilka soomaaliyeed 21 November ee 1876 waxay ahayd markii la jabiyey ciidamo aad u fara badnaa oo ka tirsanaa gumaystihii talyaaniga oo ka soo degay xeebta magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose dagaalyahano ka tirsan beesha biyamaal oo ay hor kacayeen labadii hogaamiye ee xilligaasi ugu caansanaa oo kala ahaa Allah u naxariiste mucallim kabtooli iyo sheekh cabdi abikar gaafle ayaa difaacyo adag waxa ay ka samaysteen xeebaha magaalada Marka si ay uga hortagaan gumaysigii talyaaniga oo doonayay inay cagta soo dhigaan dhulkii ay ka talinaysay saldanadii beesha biyamaal gumaysigii talyaaniga oo adeegsanayay xeeladihii military ee xilligaasi ugu casrisanaa ayaa waxay magaalada ka soo weerareen laba jiho dhinaca xeebta oo maraakiibta dagaalka madaafiic ku soo garaacayay magaalada kadibna ciidamo boqolaal ah ku soo daadiyay xeebta iyo dhinaca bariga oo ay ka soo galeen dhanka magaalada Muqdisho shir degdeg ah oo xilli duhur ah 21 November 1902 ay isugu yimaadeen hogaamiyaashii biyamaal deegaanka Hareerley ayaa waxay ku go'aamiyeen inay ka hortagaan gumaystaha Hareerley waxay ahayd xaruntii ugu weyneed ee taliska ciidamada biyamaal isla maalintaas waxaa ciidamo loo kala diray xeebaha magaalada Marka iyo deegaanka Lafoole si loo hor istaago ciidamadii gumaysiga waxaana halkani si buuxda uga bilowday dagaalkii muddada dheer socday ee shisheeyuhu u bixiyeen The Biyamaal Revolt
mujaahidiintii beesha ayaa is-araggii koowaadba dharbaaxo culus la gediyey gumaystayaasha sida uu sheegayo qoraaga taariikhyahanka ah ee awjaamac cumar ciise. nimanka biyamaal la yidhaahdo ayaa waxay isku urursadeen dhulka ay degan yihiin waxayna goosteen inaan nin caddi xeebahaa soo joogsan. 1902 ayaa talyaanigu wuxuu geeyey niman askara uu qortay meel magaalada marka dusheeda ah oo la yidhaahdo fiinlow. biyamaalku markay is urursadeen ayay meeshii dagaal ku qaadeen oo baabi'iyeen. anshirib iyo kuugu daro mid baa hadlay oo wuxuu yidhi fiinlow minoo la soo fadhiistay fallaaryaa finiini haaya. mid baa u jawaabay oo wuxuu yidhi arfiinlow fadhigaygii waaye fooldadow miyaan ka fiigaya. marka askartii halkaa fiinlow la keenay ayaa lagu leefay goorgalaba. dagaalku intaa kuma ekaan ee waxaa dhacay dagaallo kale oo taariikhi ah. beesha biyamaal waxaa u kacay dad hormuud ah oo ka duulaya mabda' diineed kuwaasoo kaalin weyn ku lahaa dagaaladii talyaaniga lagu jabiyey 1904. markaa waxaa kacay 2 nin oo yaab leh, nin la oran jiray naxariis allaha siiye sheekh cabdi abikar gaafle iyo nin la oran jiray macallin kabtooli. wax badan baan magaciisii doonay, macallin kabtooli wax dhaafsiiye waan waayey. 2 nin ayaa ciidamada humayey. waxay socotaba sanadkii 1904 waxa dhacay fiinlow, cadcadey, xaarxaar, jilib markaad 4 dagaal ayaa dhacay. 4taba biyamaalka ayaa ku guulaystay. magaalada marka waxay u jirtaa 15 kilomitir waxay ka xigtaa dhinaca bariga ah. sheekh nuur geelle oo ka mid ah culimada diinta islaamka ee beesha biyamaal wax badanna ka ururiyey taariikhda jihaadkii lala galay gumaystayaashii talyaaniga ayaa sharaxaad dheeraad ah ka bixiyey dagaaladaasi. wuxuu muujiyey in dadku ay si diiniyan ah u dagaalamayeen oo ay aaminsanaayeen inay shuhado yihiin haddii ay furumaha ku nafwaayaan. wuxuuna tusaale u soo qaatay halkudhigyadii ay isticmaalayeen oo uu ka mid yahay falkufaar ma fiirsahaayo firdowsaan u fiidsaha. sanadkaas waxaa la dhihi jiray oo gaalka askow soo bilaabtay axad xarxaaro alyidhaah axad kasiyeed isnay 9 3 4 kow khamiis lama khamiis filo alyidhaah toman lama sana markeesa gaalka markeesa lishaayay axad xarxaaro meesha askow soo sharay xarxaaro meel yidhaah jirto xarxaaro inta la yidhaah xarxaar waxaa la yidhaah hilib marko iyo gedef meel dhexayso xarxaar la yidhaah madax bolboolan waa iska yidhaah doox weyn oo meesha ka amahaayo markeesa xarxaar la yidhaah xarxaarkaasa xeebta horta soo xirxirti usoo xabada soo ridooyin waa soo shesharad bimaal waa ogaadi deegaankii bah joogeen markeesa saaman afceesadir gaalkaan soo jeeda dhulkaanya soo jeeda dhulkeen ana xoga sabah waa soo shirbi dadkaas shiribkooda waxaa kamid tahay xarantiiyabkii xarxaaro see xariin loogu xira abkoogii xarmihiisii xarxaaro see xariin loogu xira xeebta adoogii xarantii see xariin loogu xira xukunkaas waa ka xumaaday in lixawaalaa ka xiga ay kusoo shirbeen dhimisha ka jira xukunkaas ko aan ogolaha ma aha saana markeesa ay kusoo shirbeen dadkii hal nina ku dhintay hal nina ku shahiidi odayaarkii aan kasoo guuriyey hal nina ku shahiida markeesa aan nolol soo sheegay bacdigeeda odo oo reer jilib ahaay oo marka abal yidhaahu duq jilbeed ahay waxaa siri maguurtaas ahay ninkaas maguurtaas ahaya markeesaasi odo kaloo maclaguud la yidhaha waxaa siri ayuu xudurowa tahay lamadii riwaaya i kala shakgaleen wadaad ayuu abdiris la yidhaaho Suleymaan reer Ciise markeesa waxay duqa Yuusufu lamadaa riwaaya maguurta iyo ayuu xuduro maxay kan yihiin lamada nin runi ku sheegan jiray maguurta buurada la yidhaah ayuu xuduro dad deganayaan la yidhaah. marka lamadii riwaaya waa la jamciyey rag oo markeesa ay jamciyey oo si toos ah marka meeshaas soo bilaabtay kadib waxaa kusoo xigtay tii oo inta ooyo iyo dhulkaan oo markeesa hadan dagaalkii ahaayaan kusoo xigay riwaayaadka oo markeesa aan soo guuriyey tii ama uu asaxtaa isleeyahay way ninka la dhihi jiray jibriil macal cabdulle jibriil macal barolo yaqaan oo markeesa shiribtiisa ka mid ahay falkufaar ma fiirsahay firdowsa u fiirsahay ninka yiray oo ima gabal oo dambe casir ciidan soo shiriyay oo markeesa kusufooriyay falkufaar ma fiirsahay gaal wajigiis firdowsa u fiirsahay falkufaar ka fiirsigiisu balaax weyn qiyaam ninka soo shirbasa waji gaaleed la dayo markeesa balaax weyn qiyaam way ninka yira sahay oo isgalabtiini intay ama shahiid yaa dhimisha arabkii bart mogta galabtii waa shahiiday marka hadda nimankaana i barbaraaya islaaxooda i barbaraaya mogta oo
isdilaaxoodii ay barbaroon ani markii hore yaa raaca jihaadkii lagula jiray Talyaaniga wuu ballaartay waxaa ku biiray qaybaha kala duwan ee bulshada beesha Biyamaal waxaa garab istaagay qabaa'ilka ay wada degaan qaarkood oo ay ka mid yihiin Sheekhaal Gandarshe Banaadiriga iyo beesha Wacdaan oo dhanka la foolay ka dagaalamaysay arrintii waxay isu rogtay dagaal way ka tagtay jihaad bay noqotay culamadii waa soo gashay dhalinyaradii baa gashay dagaalka waxa ku weheliyay Biyamaalka niman Sheekhaal ah oo Sheekhaal Gandarshe la oran jiray oo magaalada fadhiyay magaalada Marka iyo Gandarshe degana oo tijaar aha oo Ilaahay xoolo u dhiibay maaragtay muxuu ahaayay culimana aha mashaayikhna aha ragga ayaa dagaalka galay 1905 ayaa jilib marka dagaal dame isna ka dhacay dagaalkaasna way ku guuleysteen qolada Soomaalida ah dabadeed waxa dhacay dagaal la oran jiray Baasanle oo ka dhacay jilib iyo Gandarshe meel u dhaxaysa halka ayaa Soomaalida rag badan Talyaanigu kaga laayay wali waxaanu ku jiraa dagaalkii Biyamaale Talyaanigu hal talaabo kama qaadin xeebta beesha Biyamaal ayaa jilibka u dhigtay gumaystayaashii Talyaaniga waxa ay ka laysay askar badan iyo saraakiil muhiim u ahaa Talyaaniga ayaa waxay danta ku qasabtay inay taageero u raadsadaan gumaystayaashii kale Ingiriiska iyo xulifo kale halkaasna waxaad ka dareemaysaa sida uu Allah u ayiday adoomihiisa markii ay jidkiisa ku dagaalameen Talyaanigu markaa ciidamo ka doontay magaalada la yiraahdo Casab iyo oo markaa uu haystay dhulka Eritreada Libyana waxba laga keenay kuwa Soomaaliyana waa la qoray Arab badanna waxa laga keenay Cadan oo Ingiriiska ayaa ku soo caawiyay waagi dameeto Talyaanigu wuxuu isu geeyay laba ciidan mid Muqdisho laga saaray iyo mid Marka laga soo saaray dabadeedna labadii ciidan waxay isugu tageen 1906 ayay waxay isugu tageen meel magaalada Jilib Markaad u dhow oo xeebta ah magaaladaas Jilib Markaad oo Biyamaalka xarunta u ahaydna waxay ka qabteen waardi Biyamaalku markaa buuraha ayay u carareen oo xeebihii waa ka guureen Talyaanigu markii uu taa ogaaday inay buuraha galeen dagaalkii xoogaa yarahe dib uu dhigay dagaalka waxaa kaalin weyn ku lahaa culimada diinta Islaamka culimadaasi waa ay ka duwanayeen kuwa maanta garab taagan shisheeyaha isla markaana mujaahidiinta dhaleeceynaya ma ahayn culimo dhiig u shubta dhaawacyada gumaystaha ma ahayn culimo ku dhaawacanta weerarada lagu qaado xeryaha shisheeyaha waxay ahaayeen culimo ka dhabeeyay diinka ay xambaarsanayeen sida aanu u rajeynayno culimadaasi waxaa ka mid ahaa Sheekh Cabdi Iikar Gaafe iyo kuwa kale haddaba waa maxay mawaaqiftii ay ku taagnaayeen culimadaasi waa kan Sheekh Nuur Gelle culimo diinka oo khatarta oo markaasay oo aad u soo mitay waxa kamid ah nin Sheekh Iikar Gaafe liiraaho Sheekh Iikar Ismaageedo nin liiraaho meel laanta buur gadaasheeda ku taalo oo bakad liiraaha markaasay buuradiis ee Sheekh kitaabka tanbiihiga si darac u faafi jiray irshaadka asi daran asu akhrijiray gaad wada soo dhaweey way si ka tadiliyay oo markaasay la bees oo markaasay bees duruq liiraa rit loo rari wax ka tadiliyay gaal iyo aniga maya wacdasi Sheekh Ciidan Fardooliya loo diray oo sidii waaqaxay marka waxa jiri hay islaahin way weer mubarak anika Sheekh ila firfir astagas muddo ku soo maqnaayay waa soo noqday waa yimiday hadina gawaabiskiis meesha ka bilaabay iyo baad abaabulkiis meesha ka bilaabay mar lamaad hadina Ciidan Fardooliya loo diray ma haday meel yiraahdo jawhar agteed ah muqdam loo daw tagay oo siga iyo nateeri oo eri iyo hawlo iyo haweenkii qoskiisii wal soo waday waliyo cad meel yiraahdo oo isbahaysiga islaamka masjidka weyn oo Ilaahay xamar lagu dhisay meeshaas markaas la keenay Sheekh Xirtiisi oo markaasay oo qaran jabisi qaar xamar ahaayeen oo xamar joogay markaas u yimaadeen Sheekh waxa yireen waxa rabnaa inaad tawriyaysto inaad dawaysto dalkan dalka wadanka waa qabsaday xoogaas leeyaha markaasay caloosha qalbigaada ka nac laakiin carabka iskaga hagaasan oo la fahaada badbaadiyana taladaas ay u keeneen waxa jiri maya gaali ani isdilil lana dhaxis yaa dadkii gaafle Ilaahay ha u naxariisto rahimahullah rahmatullahi alayhi markii ay dagaaladu kululaadeen Talyaaniguna uu gurmad badan u yimi waxay beesha Biyamaal tala saaratay Allah kadib waxay hogaamiyaasheedii go'aamiyeen in 500 oo askari oo dhalinyaro iyo da'ba ka kooban u diraan Sayid Maxamed Cabdulle Xasan si ay uga soo helaan kaalmo isugu jirta hub iyo ciidan intaba
raggii ciidamadaasi dhanka sayidka loo diray hogaaminayay ayaa waxaa ka mid ahaa malaaq cabdi sheekh jamaal macalim xasan maxamed mursal iyo bilow ageede waxaana la sheegaa in ciidankaasi uu sayidku soo siiyey 300 oo qori waxaa sidoo kale la xusaa in daraawiishtii banaadir koonfurta gaar ahaan biyamaal ay sayidka iyo daraawiishta u geen jireen hadiyado ay ka mid ahaayeen dharka aliindiga oo waayadii dambe loo yaqiinay banaadiri iyo alaabooyin kale tani waa waxyaabaha aadka u dhibay gumaystaha taasoo keentay in maanta gobol u kala jiraan waddanka si aanay muslimiintu isugu gurman oo dad kala duwan looga dhigo gumacyadii fallaarihii iyo warmihii ay beesha biyamaalku ku ridaysay gumaystayaasha ayaa waxaa ka mid ahaa suugaanta shicirka lama waay mar xaaraam waa shicirka ma banaana marna xikmad inna min ashicri la xikma asiya rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninka xasaan ibnu saabit al-araajiri saxaabiga ahay oo markaasa carabkiisa raariciyey oo nabi maxamed weli cilcilay war adi arsaabu quraysh mataqaanidi abubakar horta weydi quraysh aad markaasa maqaaska ka bixisa aad hajkiisa rabto rag fiicina ku jiro aniga ka dhashay bacda abubakar ka dhashay niman badan haluu kala sheegay nimanka ay heeso anagu darin abubakar arsaabu quraysh fiicu kala yaqaanay horta waxa la yiri sug wariyaa sug xasaan wixii dhiciyay wala liyaabay oo quraysh iyo bacda kubaarta isku dhiciyay wala yaa rasuulka hortiisa ku shicirad ku gabi maadaama shicirka asiyahay كوم أركاسا هدين إلهي لو غرغاراي كتاب إلهي لو غرغاراي رسولك لو غرغاراي أو قاف كاس قال مركاسا هلو عاي هاي أمام أركاسا لزمي هاي حديثي هاي ومواح وانا أجر فيها كوم أركاسا هيس كاليتو وحدنا هو ناكتو بعد كده نكو شوكان سيسو ناكتو شوكان سايو لما قبيلو عرات كدعيسو يسكو هل هاي يسكو درايو كان قبيل كافرين درايو الشعر قبيل كان واحد أو سبتير واحد تريها قاف كاس بعدها مسيحي حرام واي رسولك دي أبو تلمام عليه الصلاة والسلام جوف أحدكم من أسبوع سيم وقايح المال جود أحد كينو جود هي سيني مال بوحسنتو أو خير بان أنت شعرك بوحسن لهاي مركي أو تاس هذا شعروني مركي قاب كان حهم كأسياي واي هذيك كانت شعرك وبنانها تاس وحام صولا وحام صوب قبل لقاها أنو كتب كان مشان أبكو يالكاني أو يالكاني وأكتين وحي تاريخ خد مغشين أو مركزة أو بعد كتير كم مغشين dadkaas aan ka nadalen waxa biibalkaanyaas baad ku shirbaa nima adoogis oo ka aadinka waa ergeeya wal area nima adoogis oo keen aadinka bas gela kan maxaa wax ma soo dhaxgelisi adoog mu ku wax bas ka sheega aruka hadda dadka sifaadkaas ku sifaysan tomelam sara gal bad soo ciri leeyahay oo baadigeed gaal ay qortay muslimiin ay qoreen taariikh kaas laga sheegayo dadku abtirsaayeen annahu qaab kaanyan sidaa asihay maskuuf mugtaa أبكو يالكاين دادو أغمنهم داد أود يالكاين أغمنهم وانا لشكي يكوان أمي كوان بيهم بورتكواني ميل مكاسم يسوغلين مثل كوي يرو شكي واي صدا سلام رو وحال رمائنا أبكو يالكاين يهو يالكاين يسكو أكينو علماء الدين كهدي جوك تعلم دي حلقة جوك جرتي يسكو أكيس ودي حلقة هدي جوك ودي حلقة وقتها جوك يسكو أكيس dagaalkii dhex maray biyamaal iyo talyaaniga waxa uu socday muddo aad u dheer saldanadii biyamaal waxay ahayd midda ugu magac dheer dhulka koonfurta sida taariikhdu xusayso Febraayo 1909 dad gaaraya 2000 oo ka tirsan beesha biyamaal ayaa ku shahiiday meel la oran jiray Turunley oo hadda loo yaqaano Dhanaane oo waqooyiga ka xigta magaalada Marko ragga ka shahiiday beesha biyamaal ayaa waxaa ka mid ahaa 10 wiil oo walaalo ahi dhiigii dadkii shuhadada wuxuu abuuray nacayb guud oo ku aadan talyaaniga iyo joogitaankiisa guud ahaanba dhulka Soomaaliya waxayna ahayd markii ugu horeysay ee beesha biyamaal hub iyo rasaas isticmaashay taasoo talyaaniga si aad uga fajicisay marka laga hadlayo dagaalkii Dhanaane beesha biyamaal ayaa markii horeba u bareertay inay nafur badan samayso si aanu talyaaniga dhulkooda u makansan sidaasi waxa laga dheehanaya halku dhigyadii lagu boorinayay bulshada taasoo duqku jawaaba waa miir beesha deel iyo munkar naqdi daraan masaas ku dhicisa way inta deeshiyo dugmeeshi ma daraan dhicisaas mi daraan dhici waayo dhuwaday dalaaqa way wiilka yar fiisis leeyahay mi daraan dhici waayo dhuwaday naagtiisa wada mugta daraan hadii dhici waayo naagtay way furtaasi dhuwada mina dalaaqdo dilaxuuga yaa dalaay duq fiisis leeyahay yaa dilna naagtu furti cirku dalaay way dilaxuud aan leheen inta lagu dhaqaa cirugday wixisleeyo dilaxuud aan leheen inta lagu dhaqaa dhulkiisa fiirsi gaal asoo diiday ilaali diintiisa isdifaaca ilaali marka ragaas hadii
dadka ka dambeeytihiin maxasadaadu tihi warkaygaas way mugda dagaalkii dhanaane kadib waxaa la sheegaa in xiriirkii biyamaal iyo kii sayid maxamed cabdulle xasan uu aad u sii fiicnaaday waxa kale oo la sheegaa in ugu yaraan 10 ilaa iyo 15 dagaalyahan ay ka tageen deegaanka banaadir oo ay u hijroodeen xarumihii daraawiishta ee sayid maxamed cabdulle xasan si ay kaalmo hub ah uga soo helaan raggaas waxaa ka mid ahaa ninkii aabbaha u ahaa 10kii wiil ee ku shahiiday turunley iyo abuukar asir saacmawaayo oo ahaa wiilkii uu dhalay sheekh asir maadow hogaamiyihii magaalada mareerey ee galbeedka afgooye beesha biyamaal ayaa xilligaasi ummadda soomaaliyeed u muujisay in la iska dhicin karayo gumaystaha si kasta oo loo tiro iyo hub yar yahay marba haddii mabda'a diineed lagu dagaalamayo waana tan uu allah qur'aankiisa ku leeyahay walow kahurat wa anna allaha maca almu'miniin talyaaniga ma ilaawin ilaa iyo hadda khasaarihii iyo jabkii uu kala kulmay beesha biyamaal sarkaal ka mid ahaa soo duulayaashoodii oo uu wiil biyamaal ah ku dilay toorey ayaa ka hor inta aanan la dilin warqad ka qoray kartida beesha iyo sida aanay dulliga iyo gumaysiga u oggolayn waa kan siyaasiga saadaq eenow oo arrintaasi ka sheekeynaya nin la yidhaahdo lieutenant Maurizio Talamori nin dhalinyar takhtara xidiglaah sahamadii u horreeyay ka mid ah markabkii ay saaraayeen baraawe markuu yimid waa uu ka sheekeeyey wuxuu yidhi waxaanu ku lugaynay ilaa iyo 10 kilomitir oo magaalada dibaddeeda wuxuu la yaabay goofafka iyo beeraha iyo quruxda dhulka leeyahay iyo xoolaha wuxuu yidhi dhulkan quruxdaa leh inaan gumaysanno wax sahlan maaha sababtoo ah nin kasta oo qaangaara oo iga hor yimaada torreyna waa u xiran tahay waranna waa wata marka nin hubaysa ummad wada hubaysa see u gumaysanaysa nin torrey wata kaale aan ku gumayste waa adag tahay jaa halkaas wuxuu ka gartay dagaalyahanana inay yihiin waa dad geesiyaala waa dad dagaalyahana waa dad isla weyn waa dad well organized waxa weeye haddii ninkan wax ka xoog weyn ay ku yimaadaan ilmaadeertii baa u helinaysa jaa waa unug haddii unugaa wax ka xoog weyn ay ku yimaadaan jifidii baa helinaysa jaa waa horin haddii horintii wax ka xoog weyn ku yimaadaan qoyskii iyo reerkii baa helinaysa bal ninkaasuu u cabire waayo dhaqan cajiiba buu ilaa heer soomaalinimo la isugu helay muxuu raaciyey inaanu ka dhaadhicino our superiority aad bay u adag tahay bal kelimadda aya buugga ilaah baan ku dhaarshay raadiya u sheega ciyaalkiina intaas sarreyntayada inaanu ka dhaadhicino way adag tahay xidigle Maurizio Talamori markuu baraawe ku lugeeyay 10 kilomitir barwaaqadii buu ka sheekeeyey wuxuu yiri qoraal uu ka tagay waxaan ku faraxsanahay buu yiri waxaan ku faraxsanahay walow ay shiddo tahay in aan ka mid noqdo horseedayaashii dhulkan barwaaqada oo ganacsigeennii iyo dhallinyaradeenii ay soo aadi doonaan baan ku faraxsanahay lieutenant Talamori 48 saac ka yar markuu ku degay xeebtii isagoo maraya wiil biyamaala torreyga markuu waraaqda qoray baraawe ka qoray 48 saac wax ka yar waliba marka waxaa dhacday markay talyaaniga ilaa warshiikh buu heshiiskii uu la galay barqash ku qaatay magaalooyin shana Kismaayo marka baraawe xamar iyo warshiikh ilaa 10 kilomitir oo gudaha arrinta iyada shiddo badan baa ka dhacday Soomaalidii eriyada deganeed hal reer baa si fiican u gadooday reerka iyaga waa reerka biyamaal jaamac Umar Ciise buug buu hayaa mooga inuu soo saaray in kale dagaalkii talyaaniga iyo biyamaalka xilligii dawladdu jidhay wuxuu yiri waa la igu diiday oo magaca bedel baa la yiri waxaan iri buu yiri de reerkan haday iyagu dirdeen dagaalkii Soomaalida iyo talyaaniga laba dhihi karo iyaga dirdhay iyaga ku baabay iyaga resistance adag sameeyay reerka kaliya u hiliyay xilligaas waxay ahaayeen reerka wacdaan dagaalkaas isaga ah markii biyamaalkii la jabiyay meelaha dhaawaca talyaaniga laga gaarsiiyay waxa kamid ah la foole niman mas'uuliina oo talyaaniga oo wafdiya oo soo baxay oo xamar yimid oo rabay inay dhulka soo sahmiyaan xamar agagaarkeeda dabarto ku sameeyaan habeen iyagoo hurda iyo biyamaalkii la foole waxa lagu bixiyay lafihii talyaaniga meesha ay dhigeen haddaba
haddii beesha biyamaal horay u qortay taariikhdaasi dahabiga ah waxaa jira oo xusid mudan beelo iyaguna maanta kaalintaasi qaadanaya kuwaas oo shisheeyaha uga hijrooday dhulkooda dagaalna kula jira iyagoo aanan u aabayeelayn hagardaamadooda beelahan iyaga ah ayaa iyaguna taariikhdooda lagu diirsan doonaa mustaqbalka insha allah halka cid kasta oo u hiilisa gumaystaha ay geli doonto baal mugdi ahi dhulka ay degaan biyamaal ee lagu jebiyey talyaaniga waxa uu maanta ka duwan yahay meelaha qaar dadku ma dhex galaan shisheeyaha maadaama ay yaqaanaan waxa uu yahay waana midda keentay in xasuuq iyo dil ay kula dhaqaaqaan sida ka dhacday magaalada Marko bulshadaas ayaa waxay mar kale taariikhda ku qorayaan in loo dilayo diintooda darteed taasoo ah wadadii ay soo mareen waalidiintooda dhiig kasta oo alla dartii u daata iyo culays kasta oo alla dartii u yimaada waxaa xiga guul iyo sharaf sida uu Allah muslimiinta u ballan qaaday laakiin dadka qaar waxay yiraahdaan shalay ayaan geel lahaa waxa ka wanaagsan maanta ayaan digaag leeyahay taasoo ujeedadeedu tahay in qabiil walbaahi uu isweydiiyo halka uu kaga jiro halganka taariikhiga ah ee maanta ka socda waddanka Soomaaliya haddii hal qabiil oo Soomaali ah uu dalka ka difaacay gumaystihii Talyaaniga oo hub casri ah iyo maraakiib watay ma waxa ummadda Soomaaliyeed waqti ku qaadan karaya xabashida Itoobiya iyo kuwa la midka ah si kastaba ha ahaatee ee waxa hubaal ah in shisheeyuhu jabi doono Soomaaliduna ay sheekaysan doonto sidaa darteed waa maxay waxa maanta la gudboon qabaa'ilka Soomaaliyeed arrintaas waxaa sanad ka hor ka hadlay afayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere qodobka labaad insha Allah taala oo si khaas marka aan rabno dadka muslimiinta inaan xusuusino muslimiinta waliba khaasatan geeska Afrika ku nool waxaan rabnaa inaan xusuusino cadaawada khaaska ah iyo colka goonida ah ee ka dhaxeeya muslimiinta geeska Afrika iyo nasarada xabashida waxa weeye iyadoo geeska Afrika joogta colaada ka dhaxaysa colaada runtii oo ay garanayaan ummadda Soomaaliyeed ee yaqaanaan oo muddo dheer soo jirtay aad u badan soo jirtay laakiin insha Allah taala inta ay Soomaali ama ummadeenu ay dareensan tahay waxay dareensan tahay waxa weeye in dagaal adag uu naga dhaxayn jiray weligeed dagaalkaasina marka uusan dhamaanin oo wali ilaa hadda hamigoodii uu jiro dagaalkii marka uu taagan yahay waxaad ogtihiin xabashida geeska Afrika degan iyo dadka muslimiinta dagaaladii ka dhaxeeyay oo kamid ah dagaalkii uu hogaaminayay raxmatullaahi calayhi Axmed Gurey uu hogaaminayay dagaalkaas oo runtii ummadda Soomaaliyeed ay ka hayday xubin firfircoon oo xoogan ay ka hayday muslimiintii difaacay cirdiga iyo sharafka iyo dalka muslimka difaacay dagaal dheerna ay la galeen taas oo ay ka dhalatay marka in gaalada xabashida ay u qaadaan Soomaalida colaad aad iyo aad u adag oo waxa weeye aan dhamaad lahayn ay u arkaan dagaalkaas oo runtii dareensantiin meesha ay kala gaareen muslimiinta iyo gaaladu ay kala gaareen ilaa gaalada la jabiyay oo gaalada kale u soo qayshatay oo waxa weeye Portugiis iyo Greek iyo ay soo gurmadeen halkaana marka muslimiintana ay iskaashadeen laakiin markii ay dhacday qadarta Rabbi tabaaraka wa taala oo waxa weeye muslimiintii ay maxay soo jareen oo waxa weeye gaalada ay xoogaa markeeda ay heshay fursad ay heshay maxay samaysay ikhwaani waa garanaysaan inay masaajidii dadka muslimiinta sida har iyo waxa lamid ah ay u bedeleen waxa weeye kanaa'is ay u bedeleen dadkii muslimiinta ay la baabi'iyay in dhulkoodii la qaatay ilaa maantadan aan taaganahay wali masaajidii bariga la dushay ay kanaa'is yihiin oo har uu ku yaalo masaajid jaamaca ugu weyn ilaa maanta uu kaniisad yahay oo waxa weeye gaalada ay haysato cadawtooyada markaa soo jirtay xitaa intii markii ay qabsadeen meeyii dadka muslimiinta ay joogaan kuma ekaysan waxaad ogtiin gaaladu duulaan dheer inay soo qaaday duulaankaas oo ay ku imaadeen ilaa meesha leeda balcad ay ku imaadeen halka oo marka dad muslimiin ay kula dagaaleen ilaahayna tabaaraka wa tacaala u jebiyey jabkaas oo marka ay kula noqdeen meeshii ay ka yimideen ilaahay kula ceesay tabaaraka wa tacaala waxaad ogtiin ikhwaani xabashi iyo Soomaali dagaalka ka dhaxeeya inta heer uu soo maray 54 64 77 2007 inta waxa weeye in dadka muslimiinta iyo xabashida dagaalkoodu uu ahaa dagaal joogto ah oo aan dhamaad lahayn in marka maxay ahaday maantayto oo waxa weeye aan baraarugsanahay oo intii shalay aan ahayn runtii aqoonta sharciga Ilaahay fadliga subhanahu wa ta'ala ummadda Soomaaliyeed ay uga badan tahay dacwadii ay uga maxay ka gaartay oo waxa weeye ay ka baraarugsan yihiin in maanta la idinku qanciyo in xabashi loo xalaaleeyo dhulkiini
dadkiinii loo xalaaleeyo la yidhaahdo waxa weeye qaramada midooba usoo feermaysa la yidhaahdaa waxa weeye ikhwaani waxba ka bedeli mayso colaadii iyo cadawtooyadii u dhaxaysay muslimiinta iyo gaalada geeska afrika deganeeday gaar ahaan xabashi iyo soomaali dagaalkii u dhaxeeyey wax ay ka bedelaysa haba yaraatee ma jirto marka ummadda muslimiinta ama qabaa'ilka soomaaliyeed in aan xusuusino oo aan dib aan u xasuusino colaada iyada inaysan iloobinin ay haddana cadaawad khaasa ay ka dhaxayso muslimiinta soomaaliya ku nool iyo xabashida marka in ummadda soomaaliyeed ay baraarugaan oo ay ogaadaan waxa weeye cadowgooda ay aqoonsadaan cadowgooda marka waxa weeye u diyaar garoobaan dal iyo dibad midkii inta meel kasta ay joogaan ummadda soomaaliyeed marka cadawtooyadii ayaa maanta inta waxay heshay garab ayay heshay garabka oo marka waxa weeye ay gaalo dhan ay u garab siinayso sidii shalay Axmed Gurey markuu dagaalamay xabashi ay u garab siiyeen ayay maantana haddana xabashi mar kaleeto u garab siinayaan iyagoo 2007 markii xabashidu dhiig baxday lagu soo xoojiyay oo gurmadi looga soo dhigay waxa weeye afrikaanta kale looga soo dhigay maanta markii maxay afrikaanti kale marka xooga ay daashay tabcaan noqotona haddana waa taa ilaa awalba hadafka Itoobiya meesha loo qabtay yaade waa taa haddana Itoobiya la soo celiyay oo markaa meesha lagu soo celiyay marka ummadda Soomaaliyeed muslimiinta meel kasta ay joogaan dalka iyo dibadda guud ahaan inay baraarugaan oo ku baraarugaan cadawga aan soo jireenka ee lahaan jirnay maantana rabo wadankii in la siiyo waxa weeye lana ku garanayno in waxa weeye ay ummadda meeshay qabsadaan inay ibaadeeyaan waxaad ogtihiin wixii xamar ay ka sameeyeen muddadii 2007 intii yarta ay joogeen oo mujaahidiintu ay dagaal kula jireen masaajidda dadka ugu laayeen kutubtii quraanka ay ula dhaqmeen culimadii say u galeen waxaas oo dhan garanaysaan marka insha Allah taala ana cadawtooyadiini ee aadan hilmaaminina colka idin kala dhaxeeyay waxa rabaa si khaas ah marka qabaa'ilka Soomaaliyeed runtii degan ama maxay ahayd maanta ay gaalada cadawgu ay u qabsaday deegaankoodii iyo dhulkoodii u qabsaday waxa ikhwaani maanta walaalaha tihiin waa jecelnahay wallahi waxaan la jecelnahay wixii nafteena la jecelnahay ayaa idin la jecelnahay waxaan jecelnahay inaan duloobinin oo waxa weeye awlaadeena iyo ehelkeena aysan duloobinin nafteena aysan duloobinin waxa weeye ilaahay tabaaraka wa taala inaan raadi gelino ayaan jecelnahay rabbina subhanahu wa taala aan weydiisanayna inuu naga raadi noqdo idinkana waxaan jecelnahay sidaas oo kale idin la jecelnahay maadaama sidaas la jecelnahay waxa weeye ikhwaani inaad maxayaaday aad ka kacdaano cadawga isaga ee dhulkiina qabsaday inaad marka u kacdaan oo mujaahidiinta aad garab istaagtaan maanta mujaahidiinta waa u go'aansan tahay cadawga isaga biidnillaahi tabaaraka wa tacaala in ay dalkan ay ka xoreeyaan diinta ilaahayna tabaaraka wa tacaala ay sara mariyaan kitaabka ilaahayna uu dalkan uu xukumayo insha Allah tacaala go'aan ay ku qabaan waxa weeye qaraar aysan ka noqonayn weeye waxa weeye ilaahay subhanahu wa tacaala waxay ku caabudayaan weeye cidna uga gamban maayaan marka maadaama mujaahidiinta ay taagan yihiin oo ay gaalada la dagaalamayaan idinkana waxaa laydinka rabaa inaad istaagtaan oo waxa weeye dhalinyaro odayaal dumar naf iyo maal inaad cadawga aad u istaagtaan khaasatan meelaha uu degay hadeer inaan la suginin intuu u kuma dhigto inuu waxa weeye uu sii deganaado inaan la sugin ikhwaani waxaan idin xasuusinaynaa maxaa haysta dadka muslimiinta ah ee xabashida hore u qabsatay Soomaali galbeed dhulka la yiraahdo maxaa haysta ikhwaani waad aragteen dulliga iyo rafaadka iyo waxa weeye ay ku jiraan diin la'aanta haysta waxa weeye maxay dhaqaale la'aanta haysta waxbarasho la'aanta haysta caafimaad la'aanta haysta yani waxa haya Soomaali galbeed iyo dhulka ay qabsatay Itoobiya ama xabashi hore ay u qabsatay waxa haysta waad garanaysaan tusaaleedu kugu filan tahay idinkana wallahi inaysan kaga roonaanaynin inaysan kaga fiicnaanaynin maxay isku isdiraatihiin walaalaatihiin isku diinaatihiin dadka iyaga sida ay kula dhaqanto si ka daran ayay la dhaqmi doontaa marka intaysan caga dhiganin oo waxa weeye maanta ay tabar daran tahay inaad marka u istaagtaan oo cadawga taga sakiixtaan waxaan xasuusinayna ikhwaani taariikhdu way socotaa waxbay qoraysaa waxa weeye waa la sheekaysanayaa biidnillaahi tacaala cadawgan waajibi doonaa ilaaha noo ballan qaaday sayuhzamu aljamcu wayuwalluuna adubur cadawgay soo baysa wuu jabi doonaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala duudkana waa jeedin doonaan waana la sheekaysanayaa waxa weeye meelaha lagu sheegsanaariir waa isugu imaan doonaa marka awlaadiina iyo waxa weeye reerihiina taariikh madow oo ha u qorinin oo ku qasabtaa dhowti markaad sheekaysanaysaan oo sidii gaaladii loo jabiyey sidii gaaladii looga adkaaday sidii gaaladii subhanahu wa taala u duleeyay qabaa'ilka say ula dagaalamay marka laga sheekaysto inaad sheekada soo gali weysaan ama wiilashiina ay soo gali waayaan oo madaxa ay laalaadiyaan
maxaa yeelay cadowgii u hogteen cadowgii maxay ahayd iska celin waayeen amaba waxa weeye cadowgii taageereen garabay siiyeen waxa weeye taariikh madoobay noqon doontaa oo ilmihiinina mugdi ku noqon doonta idinkana mugdi ku noqon doonta feerkiina iyo qabaa'ilkiina mugdi ku noqon doonta waxaana la ikhwaani marka qabaa'ilka Soomaaliyeed kuwooda soo jooga maxay Soomaaliya gudaheeda iyo kuwa dibadda jira intaba qabiil walba inuu ka fikiro maanta taariikhda maxay ku qoranaysaa wanaag iyo khayr iyo waxa weeye maxay ahayd Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax uu kugu maxay martada lagu amaano Ilaahay uu raadi ka yahay miyaad qoranaysaa bis waxa qoran doontaa waxa ku ihaanowdo waad ku dulowdo Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka tagtana waxa way aad kala kulmaysid waxa way carada Allah tabaaraka wa ta'ala Ilaahay marka aad masaalixdoodii dalahooda aakhirada adduun inay ka fikiraan cadawga isagana ay iska bixiyaan bal iska dhaafada in laga fadhiistay in la shaqeeyahayna oo garab la siiyayna وهذا كذا ولسه معايا تزواب كفر وإله تبارك وتعالى إليه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إله تبارك وتعالى إليه maxay hakadigan yahuud iyo nasaara awliyaha hakadigan maxay leeyahay wali soo ayaga sadiq saaxiib naasire gargaar ayaga isiiyo adinku saaha noqonina waxa weeye laakiin cidii idinka kamida ee nimanka raacda garab siisa waxa weeye saacida cidaas waa cid gaalowdo iyaga la mid ah weeye ilaahina zaalimiinta iyo kuwa khayr laawaasha ilaahay mahanu tabaaraka wa taala ogaada ikhwaani ilaahay tabaaraka wa taala ballanqaadu la siiyay ballanqaadkaasi marka waxa weeye ina adkaanayna weeye annagoo marka adkaanayna ina isdulayna waa doqonnimo ilaahay tabaaraka wa taala uu leeyahay wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin ilaahay tabaaraka wa taala uu leeyahay aday isliidinina madaxa hoos u dhigina ha israaraan ihaano ha qaadanina hana murugoonina oo ha cabsanina waxa weeye idinka sarreysaan kalaanaga ka sarreyna هذا المسلمين يا مؤمنين إيمانك إسلامنا كرجنا إنك كقرينا إلهي سبحانه وتعالى نوب بلغاضي وكان حقا علينا نصر المؤمنين إله بان نوب بلغاضي وإن جندنا لهم الغالبون جندنا يا عيدا كان أيات كان إله بان نوب بلغاضي مركز انت صوب بلغاضي ديكو هايستان على الأمة الصومالية خاصة قبائلك وهكرر ميانو هشيسيدي يا بلغمدي مسلمين تأيلا قليل فهو حوى الدوراتك iyo waxa shirarkii muddooyinka ugu dambeeyay mujaahidiinta iyo qabaa'ilka u socday qabaa'ilkii ballanqaadka beera ballanqaadka ka rumeeyano qabaa'ilka kale ee mujaahidiintu soo gaaray marka ay gaalo haysatana waxaad ku xukuntiin qabaa'ilka iyaga inaad markii idinkuna aad ka kacdaan waxa way insha Allah ta'ala qof walba taariikhda waad ku waranaysaa fiiriso